وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما تجمعون. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تبارك وتعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. صدق الله العظيم. أسأل الله أن ينفعنا بكلام ربنا جل جلاله. الله نقو أنفعه hadalka ilaahay subxaanahu watacaala. ikhwaanii, baaraka allahu fiikum. marka ugu horreysa waan idinku mahadinayaa soo dhoweyntiina wanaagsan iyo raqbada ilaahay subxaanahu watacaala qalbigiina geliyey lisamaaci dikrihi, dikrigiisa inaad dhegaysataan. ashkuru almashaa'ikh fudalaa imaam almasjid akhuna mahad وأخونا نور. وكلام الله siduu rabbigeenba noo sheegay subxaanahu watacaala. hadalladii aan ku farxay bay ka mid ahayd walaalkeen abwaanka uu caddeeyey in cid qortay aysan jirin, in nebi qorsheeyey aysan jirin, in halkaas qaafka uu kala galay hadalkii ilaahay unbuu maaragtay ku luqeeyey. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون إلى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يعني رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم ودي قرآن كيسان كسو قالنا وسو مدك سو قارسي بابا إلهي ليه هذه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما كنت تتلو من قبله من kitaab horay umaad akhriyi jirin oo nin wax akhriya maad ahayn. wax akhriska maba yaqaano kitaab si loo akhriyo. walaa takhuduhu biyamiinik, weligaana waxba maadan ku qorin gacantaada midigtaada, waxba kumaad qorin. nebigu saad la socotaan min ashrafi sifaatihi waxaa ka mid ah alummiy, annabiy alummiy. ilaahay baa ku sifeeyey subxaanahu watacaala. ummi buu ahaa, laa yaqra' walaa yaktub. walaakin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu qalbigiisa ku soo dejiyey qur'aankan ruux uu ku tilmaamay. waa ruux sida insaanku uu insaan ku noqonayo biruux, oo marka ruuxdu insaanku ka baxdo uu qiimo beelayo. bimacnaa qiimihii uu ku noolaa ruuxda wey.
laakiin ruuxdu markay insaanka ka baxdo indhihiisii iyo dhagihiisii iyo kalihiisii iyo lugihiisii iyo gacmihiisii iyo midna faa'iido ma leh mid walba waa shaqo beelaya sidaasoo kalea adduunkuba ruuxdiisuu yahay qur'aan biduuni الqur'aan waa addunya kuluha mayita waa bakti weeye laysat bishay quluubtana waxaa iyo insaanka waxaa ruux u ah kalaam اllah wakadalika awxaynaa ilayka ruuxa min amrina ma kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan waa ka rabbigeen leeyahay subxaanaه wa tacala qur-aanka nabigeenna ilaahay ku soo dejiyey subxaanaه wa tacaala si cajiib luu ilaahay ku soo dejiyey allah subxaanaه wa tacaala qur-aanku isagoo kalaamkiisa ah jumla mar qura ayuu lowxulmaxfuudka laga soo dejiyey ilaa samaa'i dunya meel ilaahay og yahay oo samada adduunyada ah baa mar qura ilaahay soo dejiyey waa markuu ilaahay uu tilmaamayuu leeyahay inaa anzalnaahu fii laylatin mubaaraka laylo mubaarakaanu soo dejinay waa laylat اlqadri yani qur-aankao dhan marba qura la soo dejiyey oo habeenkaas laylat اlqadriga ah ee suurad qur'aanka keliya habeenkaa keliya ka hadlay aan shaqo kalaba lahayn suuratu ina anzalnaahu fii laylat اlqadr ilaahay uu layladaas habeenkaas fadligeeda uu ku tilmaamayo halkaa waxaa ka cad qur'aanka marka hore jumlatan baa ilaahay soo dejiyey laakiin nebiga si cajiib laa ilaahay markaas ugu soo dejiyeyoo jumlo uguma soo dejinine bitafriiq iyo munaasabaat adacwiya ilan howl baa loo dirsaday dadkiisa isagoo isaga dhex jira nabiyuna moxamed sala allahu alayh wasalam biabi huwa wa ummi oo ummaddiisa ka mid a oo adeeradii iyo ilma adeeradii iyo qaraabadiisii iyo qabiilkiisii ku dhex nool oo wuxuu kaga soocan yahay ayna jirin ilaa inuu yahay amiinkii ammaanada badnaa ee sidqiga badnaa ee akhlaaqda badnaa ee suubanaha ahaa intaa loo waxyoonba ilaahay sifaadkii kamaal oo dhan u buuxiyey hase yeeshee aan loo waxyoonin oo wuxuu dadka u sheegay aan garanaynin way la fool xun tahay waxa uu arko dhinac marka la fiiriyo reerkiisu waxay ahaayeen quraysh waxay ahayd dadka carabaha ugu caqli badan ugu abwaansan ugu fasaaxo iyo balaaqo badan waxaa golaheeda loo iman jiray in abwaanada sida akhuna oo kale iyo atraafta adduunka ka yimaada meeshay ku kulmi jireen ay ku gabyi jireen oo ay alaabta isugu dhiibi jireen oo isku radiyi jireen suuq cukaad iyo hayrihi waxay ahaayeen dad fasaaxa leh dad balaaqo leh dad caqli leh bay ahaayeen dhinac marka la fiiriyo waa sidaa oo ashraafu lcaraba dhinac marka uu nebigu fiiriyana calayhi الsalaatu wasalaam dee waxay caabudaan dhagxaan ay iyagu gacmahooda ku samaysteen iyo dhoobo iyo qoryo iyo xataa marmarka qaarkiis timir baa la qooshayaa la hagaajinayaa cajiin laga dhigayaa dabadeedna sawir insaan baa loo samaynaya dabadeedna ilah baa laga dhiganaya haddii la gaajoodana waa la iska cunaya bal ilah la cunay ka warrama xaaladoodu saasay ahayd kusii talax tageen oo maxabba ayaa qalbigooda u gashay aalihada ay caabudayaanoo ay gaadha heer ilmahoodii ay dhaleen ay u gowracaan sanam awgiis oo markuu rabbigeen leeyahay qad khasira aladiina qataluu awlaadahum safahan bigayri cilm waxaramuu maa razaqahum allahu iftiraa'an cala allah qad daluu wamaa kaanuu muhtadiin xaaladda ay ku jireen xaalad aada u foolxun bay ahayd xaalad markuu yani laga hadlayo ama la sifaynayo yani aadan xamili karin bal nin dhan oo sharaftiisii iyo qiimihiisii iyo taladiisii iyo caqligiisii iyo lala yaaban yahay oo inan yaruu isagu dhalay intuu qaato u kaxeeyo oo hooyadii iyo kala tago oo duurka ama duleedka gurigiisa gadaashiisa tago god u qado iyadoo nool afgembi ugu tuuro dabadeed aaso bal ka warramo iyaduna ay garhkiisa ka masaxayso markaa godka uu qadayo ileen garan mayse
carrada soo gaadhay iyo ciidda soo gaadhay saa uga masaxaysaa aabbaa leedahay markuu godkii dhammaystirana afgambi intuu ugu tuuro oo ku aaso halkaasay ka gaadhay foolxumadaasaa ka jirtay adduunka oo caadi u ahayd oon la iskula yaabayn oon la isu qabanayn oon cidna lagu eedeynayn bal ay caadayba u ahaydba waa kuu rabbigeen leeyahayba وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون marka ugu horreysay loogu bishaareeyay oo la yidhaaho gabar baa kuu dhalatay markiiba wejigiisa muruga iyo xusni ayuu la madoobaanayaaba waaji madoobaanaya oo qalbigiisana waxaa ka buuxsamaya xusni iyo tiraanyo min suu'i maa bushira bihi yani foolxumada loogu bishaareeyey awgeed halkaasay ka gaarsiisnay xaaladooda markaasuu ilaahay laba midun buu noqonayaa inuu haysto oo uu dili karo inuu dili uu rabaa laakiin waxaa laga yaabaa inay hooyadeed ku dhegtay in meeluu ka maro uu garan waayey marka si huun ah iyo dulli ah inuu ku hayo amase uu ciidda dusiyo iyo dusuhu inay tahay baaban u malaynaya halkaa iyo dusin inay isku mid tahay baa xagga af soomaaliga marka la eego oo halkaa godka uu ku tuuro oo marka uu rabbigeen leeyahay alaa saa'a maa yaxkumuun bal caqligooda markay la feeriyo iyo sharafta ay leeyihiin iyo waxa ay ku kacayaan oo samaynayaan nabigu sala allahu calayhi wasalam qowm noocaasuu u yimid oo dulmiga iyo fadaadada iyo ma garanaysa isticbaadka iyo is-addoonsannimada iyo ilmahooda dilayaanba kan ilmihiisa u dilaya gabadh ahaan u dilaya waxaa ka daran midka inankii uu dhalaya wiilkiisa gowracaya sanam uu ugu dhowaanayo taqaruban ilaa hada sanam markaa qur'aanku arrimahaasuu ku soo degay oo nebiga shaqadaasaa loo diray shaqadii loo diray nebiga waxay ahayd dadkaagan u dig una sheeg waxaan ay ku sugan yihiin inay khasaaro tahay waxaad ugu yeedhaa laa ilaaha ila allah waa kelimaddii ay la yaabeen oo waxaan oo asnaama 360 sano baasa kacbada ku heeraarsanaa baa leeyahy ka wada tago ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shayun cujaab marka run ahaanta ikhwaani qur'aanku kulligii waa dacwa ila allah run markaad fiiriso qur'aanka ilaahay min awalihi ila aakhirihi waa daaci ila allah ilaahay baa dadkiisa makhluuqaadkiisa isaga isugu yeedhaya xataa aayadaha la kala saaro ee la yidhaaho axkaam iyo ma garanaysaa qasas iyo siduu akhuuna alabwaan u kala saaray oo kale dee culimmadu ay u kala saareen xataa fii khilaali qasaska uu ilaahay uu ka warramayo kulligeed nihaayadeeda waxaa ilaahay ula jeedaa waa dacwa ila allah qur'aanka qasaska uu ka sheekeeyey kulligeed waaba dacwaba waa dacwa ila allah waa dadkii hore rusushii hore siday umamkooda ay ugu baaqi jireen waxa ay ku oran jireen waxa loogu jawaabi jiray hamiga rasuul kasta ilaahay ummaddiisa uu u soo diro inay tahay inuu ilaahay ka sheekeeyo inuu ilaahay dadka jeclaysiiyo makhluuqan uu la hadlayo inuu rabbiga ku xidho suuratu shucaraa 9 kelimo 9 aayadood oo isku xiga oo qaala bidaayat suuratu shucaraa ka fiiriya muxuu ilaahay tafsiilkaas bayaankaa cad ee tafatiran uu uga hadlayaa waa dacwa ila allah rususha iyo nebiyadii hore ee qur-aanku uu ka sheekaynayo kama sheekeeyo cibaadaadkoodii kuma talax tago si jumla mar ilaahay u sheegaa inay cubaad ahaayeen inay salaad tukan jireen inay zaka bixin jireen inay caabidiin ahaayeen baa ilahay ka sheekeeyaa laakiin salaadoodu nooca ay ahayd imise ragcay ka koobnayd ma sujuud iyo rukuuc
bay ahayd ma rukuucda horrayn jirtay mise sujuudda ma sifadan aanu tukanay ahayd ma tukalay ahayd waxaasoo dhan qur-aanku iskuma mashquuliyo kamana hadlo maanta haddii la yidhaha nebi ibraahim oo khayru lkhalaa'iqi bacda nabiyina moxamed sala allahu alayh wasalam haddii nebiguna farciisu buu ahaa isagaa dhalay aabbihi weeye aabbaheena wada yahay calayhi الsalaatu calaa nabiyina afdal الsalaati wassalaam khaliil الraxmaan ahaa haddii la isweydiiyo la yidhaha salaaduhu tukan jiray imise ahayn lagama jawaabi karo lama yaqaan soonka imisaa lagu farad yeelay isaga ma ku lagu farad yeelay mise maba jirinba lama yaqaano maba isku mashquulin qur-aanku laakiin qur-aanku wuxuu isku mashquuliyey dacwadiisu say ahayd see buu dadka ula hadlay aabbihii see buu ula hadlay 4 aayadood oo isku xigta oo mid walba yaa abati aabbihii oo gaal ah oo weliba gaalnimada ku talax tegay oo isagu asnaamtuu samayn jiray baa layidhi waa sanamka kuwa sameeyuu ahaa ee sadanada u ahee hayuuba ahaan jiray baa layidhi aazar duq la odhan jiray marka aabbihiis nooca ah ayuu hadal wanaagsan oo latiif ah oo aabbanimo uu ugu dhawaaqaya waa kuu rabbigeen leeyahy wadkur fi lkitaabi ibraahim xus baa la leeyahay yaa rasuula allah ya muxamed iyo inta maqlaysa qur'aankow inahu kaana صidiiqan nabiya darajat الصidiiqiyata alcudmaa buu gaaray iyo nubuwada meeshii ugu sarraysay id qaala liabihi ma odhan kaana yusallii kaiiran buu tukan jiray wa kaana yasuumu kaiiran lama sheegin taas muhimaduna taa ma aha taa waa la iska ogyahay laakiin waxaa laga hadlay sidee buu u hadli jiray dacwadiisaba id qaala liabiih yaa abati lima tacbudu maa laa yasmacu walaa yubsiru walaa yugni canka shay'a yaa abati aabbahayow lima tacbudu maxaad u caabudaysaa maa laa yasmacu midaan waxba maqlin walaa yubsiru aan waxba arkin walaa yugni canka shayan waxba kuu taraynin maxaa u caabudaysaa yaa abati inii qad jaaءanii min alcilmi maa lam yaأtik faاtabicnii ahdika siraaطa sawiya yaa abati aabow inii aniga qad jaaءanii min alcilmi waxaa ii yimid cilmi ilaahay ii waxyooday maa lam yaأtik waxaan adiga kuu iman baa ilaahay aniga i barayo ii waxyoodee fatabicnii iska kay raac inkastoon wiilkaaga ahay oo anigu aad dhashay haddana dee taas fadligaasaa ilaahay ii siiyo waxaadan adiga lagu barin oo laguu sheegin baa la ii sheegay aabbow iska kay raac aan waddo wanaagsan kugu toosiye yaa abati inii akhaafu an yamasaka cadaabu min alraxmaan fatakuna lishayطaani waliya yaa abati yaa abati yaa abati yaa abati jawaabtii maxay noqotay qaala araagibun anta can aalihatii yaa ibraahim ma aalihadaydaad nacday ibraahimow lain lam tantahi laarjumannaka wahjurnii maliya warkaan aad wadid haddaad joojin weydid waan ku rajminayaa oo dhagax baabaan kugu dilayaa ee orodoo iga tago hortayda ka dhaqa kaasay jawaabtay ay noqotay qaala salaamu calayk saastakfiru laka rabbii inahu kaana bii xafiya waactazilukum wamaa tadcuuna min duuni illahi waadcuu rabbii casaa an laa akuuna biducaa'i rabbii shaqiya halkaasuu ilaahay ka waday qisadii ibraahim calayhi salaam maxay ku saabsan tahay lidacwa dacwadiisay ahaa ma intaa keliya maya suuraddaas ku xigtay taha baa la yidhaha suuradda ku xigtay suuratu alambiyaa magaceedaba suuratu alambiyaa baa la yidhaha maxay ka sheekaysaa nebiyay ka sheekaysaa yay ku bilaabday ibraahim maxaa laga sheekeeyey qisadii ugu cajiib lahayd ee fii xayaati dacwatihi baa ilaahay kaga sheekeeyey oo ahayd qisadii uu asnaamta ku burburiyey markuu hadlay oo in badan hadlay oo in badan hadlay oo si kasta u wacdiyey oo dhinac kasta ka tusay ayuu go-aan iska gaaray ilaahay baa waafajiyey go-aanku gaaray waa maxay asnaamtan ilaahay kayrkiis la caabudayo waa inaan burburiyaa waana dhaartay watallaahi laakiidanna asnaamakum bacda an tuwalluu mudbiriin weliba wuu yidhi oo qaar baa maqlay isagoo arrinaha leh inaan asnaamtiina aan burburin doono sidii buu yeelo waa kii ka dhabeeyey waa kii maalin meel cidli isugu yimid oo asnaamtii la caabudayo dadkii meeshii ku faraxsan yihiinoo goortii la hoyan lahaa buu yidhi wallahi anigu idinma raaci karo waan yar bukaa allah kelimaddaa waan bukaa uu yidhi wuxuu isku qoray meel buu ku qortay inay been tahay buu meel ku qortay
taasaa been la odhan karaa dee wuu bukaayo qalbiguu ka bukaayo laakiin in beentaa uu sheegay meel buu ku qortay oo waata markii yowma shafaaca alcudmaa yowma alqiyaama markii ilaahay uu carooday caro uusan weligii caroonin caroon doonin iyadoo kale nebiyadii oo dhan ay ka baqeen nin walba waxbuu sheegtay isagu wuxuu yidhi anigu 3 goor baan been sheegayoo ilaahay hortiisa maanta ma tegi karo mid bay ka mid tahay tan kow innii saqiim muxuu uga jeeday inuu meesha ku haro waa la wada hoyday keligii baa soo haray asnaamtii oo cunto loo dhigay oo la hagaajiyey oo la qurxiyey oo la sharsharxay oo cuntadii iyo ma aragtay buskudkii iyo macmacaankii la hordhigay ayuu hor yimid markaasuu yidhi maad wax cuntaan maxaad meeshaan afka la taagtaagaysaan waa laydin marti qaaday dee wax cuna dee cuntada cuna ya ما لكم لا تأكلون محاول الذي ألا تأكلون ماذا وحعني ما لكم لا تنطقون وما حدا مسنتين ما هذا الشام وهذا الكوكور مريب وقت وحبوا معه ليسان هذا أنا ما هذا ليسان أي باته النجاسة وحايد كل عوض ركضون تاني وكفاس توقاتي كل جود بربري فراغ عليهم ضربا فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين الله ضربه وحي أهيد إلهي رالي قلسي أو إلهي خل الذي قرسيسي واتخذ الله إبراهيم خليلا سنابتي بو بربري كل قول كي أبوينا أبو كتغي ضبك ليه جعل كما هي والعياذ بالله ضبك ليه كي أبوينا أيو فاسكي قورته أسريه وكتغي طب هذا المركز شو النقطين قومكي أي أركان أسنامتي يا آلهتي ووضع بربرسن بارتان بالله قالي مخابرات كي أنا سستي بالله دري ورسدة يا لي ور آلهتي يا بربري خط كي باس هو قالي وحال لي ويلي يرو إبراهيم لينا وما المهن كهت هل جري باجري هلا سوقبته هلا سوقبته إبراهيم أرنتي تحقيق بالله فري إبراهيم وماذا سنة يلي بالليل وحيل أنا ما كان سو ما دركتان كي وينا وابا موقتها الذي دليل كي جريمة وكسميه بابا فاسكي بابا سرية كوي كم بربري كوا كان لبربري بل ورسده أو محل دين بربري ده هاي كجوابين قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم كوان بربرسن اللي ججبي إن كانوا ينطقون هذا يعني محودا الله إن فطرة سليم كهيد إلى هي إنسان كأبوري إنه رقاجيه وين رقاقه فعلا الفطرة الأصلية للإنسان وتوحيد ولا إله إلا الله بختي يقولون كان مرضا بيسوق كلام تيبع رقاقه ودب يسوون نقدين وكله ليه فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون دب يسوون نقدين والله وحن شيء إبراهيم وحباك جرة والظالمين باتين كون إسكدعين واي إسكعلين واي هذا هدلي واي محك عبود إيسان أنت يربع دقائق وأنا أنت أضل لها لكن شيطان ما ديني شيطان وقوم كانوا ديارين وجهنم وكشوا مركبة سقيبة ماشى سوق علي دبي مركب مرض كودي عذر كودي ونقضين ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ورواد وقتها هنا يكون ولي قود بقى هذلنا هنقول الجنين نو جواب مركز سوسك عديشتوه قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قصده وهو ذكر نيسا قام بالقاري ولا محكمة دي وحن ليلين كان وحا أسميه ويلك كان وحا أسميه ووحن هذا كور لا سميلين هذه إلهي ذي بو يولاي وبربرية سومها عذاب آن عقاب آن عدنا صومر وإن عقابنا
dabkii adduunka ugu weynaa waa inaanu shidnaa dabadeedna aanu ku tuurnaa dab bay muddo dhan hurinayeen waxaa la yidhi heer waxay gaadheen dabka aan loo soo dhowaan karin oo shimbir hadduu soo dul maro isagoo samada maraya uu ku soo dhacayo kuleyl waxay ka qabto oo agteeda ma iman karaane intay isagii xidhxidheen wax manjaniiq la yidhaah oo lagu gano maxaa af soomaaliya lagu odhan lahaa waad u malaynaa xaaji abwaan may leeb yaqaansan maaha bahal sidii moollo oo kale oo intisaal loogu xidho dee waa bahalka dhagaxa lagu ganoo kale oo laakiin loox laga dhigay oo lagu seexiyey oo saa inta loo qabto markii la sii daayay sidii dhagax ya leexo oo kale oo ganaysa bay u sameeyeenoo ay ku xidheenoo si ay meel fog ay ugu looma dhowaan karo agteeda lama soo mari karo anigu waxaan la yaabaa suurat alambiyaa waxay ka sheekaysay ibraahim oo qisadiisan si tafatiran waxuu haddana ilaahay ka sheekeeyey nuux luut buu ka sheekeeyey haddana nuux buu ku xijiyey haddana ayuub buu ku xijiyey haddana dannuuni yuunus buu ku xijiyey haddana zakariya buu ku xijiyey mid walboo nebiyadaa ka mid ah ilaahay buu u dhawaaqay alluu baryey xaajadiisa khaaskuu weydiistay nuux ilaahay uu baryey wanuuxan id naadaa min qablu fastajabnaa lahu oo ilaahu dadkan iga qabuu yidhi waana ajiibnay waana halaagnay qowmkiisi luut sidoo kale fastajabnaa lahu ayuub sidoo kale cudurkii baa ku dhacay fastajabnaa lahu fakashafnaa dannuuni oo yuunus calayhi salaam oo libirigii kalluunkii weynaa calooshiisa lagu hubsado halkaa xabsi looga dhigay naadaa fi الظulumaati an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min الظaalimiin fastajabnaa lahu zakariya id naadaa rabbahu fastajabnaa lahu ilaa ibraahim ma naadaa ma hadlin ilaahu iga soo qaba ma odhan ilaahu iga soo gaadh ma odhan ilaahu nimankan dabkanay igu tuurayaane iga celi ma odhan bal ee malaa'igtii ayaa oyday dajat fi الsamaa ohin markaasay dhaheen ilaahayow khaliiluka oo adiga keligaa ku caabuda oo maanta la gubayo ma adkaysan karno mayow garan maayaan ilaahay wuxuu yeeli doono liannahu yafcal maa yashaa ilaah hadduu doono u ogolaanaya inuu iska gubto oo dee jannada u geeyo marka ayagu waxay leeyiin yaa rabbi ilaahayow noo idan aanu maaragtay u gargaarnay khaliilak oo aanu ka badbaadinna gaaladan laynayse ilaahay wuxuu ku yidhi baa layidhi ordoo u tagoo u bandhiga hadduu idinka ogolaado u gargaara hadduu idinka ogolaado u gargaara oo badbaadiya malaa'igtii baa u timid isagoo xidhxidhan ibraahim calayhi salaam oo loo diyaariyey in lagu gano dabkaa xoogga badan ilaahay uu ku tilmaamay jaxiim naarna wuu ku tilmaamay marka ay u yimaadeen ibraahim ay ku dhaheen ibraahimow inaan kuu gargaarnaan doonaynaa oo kaa celino dee waa malaa'ig ilaahay awood buu siiyey qaar baa badahaba xukuma oo baddoo dhan ba keeni karaaba meesha ku shubi karaa ama wayba dafayaanba isagoo dhan ba way la tegayaanba ama kuwan doonaya inay meesha ku tuuraan bay leeyihin waxay doonaan bay samayn karaan ila hadduu ilaahay u idmo waxay doonaan bay samaynayaan malaa'igtu wuxuu yidhi ma idinka maya idinka waxba idinkama rabo makhluuq waa makhluuq ama ha weynaado ama ha yaraado jibriil 600 oo garab buu leeyahy hal garab hadduu fidiyo mashriqan wa maqriban sharqi iyo garbi qoraxda meesha ka soo baxda ilaa meesha u dhacdo waa adduunyada intay ku fadhiga oo dhan ayaa hal garab ku filan hal garab 599 baa u dhiman uu fidin karaa oo uu duulayaa uu daalayaa isagu mulkiga ilaahay boqortooyadana isay dhammaanay ilaahay subxaana wa tacaala jibriil calayhi salaam oo awooddaa leh iyo qur-aan jada yar ee adigu aad labadaada farood ku qabanayso ibraahim way isugu mid waa makhluuq kana waa makhluuq kana waa makhluuq ma cindahu farq idinka waxba idinkama rabo laakiin rabbigay nacam ilaahay muxuu ku jawaabay markaa isagana jawaab cajiib laa la siiyey waa la iska daayey malaa'igtii iska noqotay ileen ilaahay wuxuu ku xidhay gargaarkooda shardi wuxuu uga dhigay inuu isagu codsi ka timaado codsi ma ka iman waayo haa dee iska taga ilaahay marka khaliiluraxmaan miyuu gubayaa
حتى مخلوق كله وحليل إلهي ما ذيك سنين ملائكتي مؤرن كقبتا أما بيا ماشا كشفبا أبدا ولا إسكداي ولا توري ولا جني أنتو سي سعدي بأمر مباشرة توس الله رب العالمين وحو الله الله دبكي نارتي على الله وأمركم إلهي ليه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قرآن كودي كذب قالوا حرقوه بيقوله وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين يوقون كاسي قال سماه أن قلنا رب العالمين محنري قلنا وحنري يا نار ناري كوني بردا قبوه وسلاما نبت قليو على إبراهيم دوشيشا وحلي لها دوسا الله أرن لهين وسلاما من دا قبو بيبقى للحيد بقى إسلامك قبو يبقى بدل لها لكن وحو إله كتبك يعني وسلاما نبت قليو على إبراهيم سوء السعودي تبكي بكل حي أمر إلهي بهيستها بردا وسلاما على إبراهيم بقى الله وقال لي وهلا يري حركيه كحر حدناه بيقو قويسي اللي حرك بقى لغو سو حرحرايا كوي قعمه كغا خدنايا كوي لوها كخدنا وخي ودن بي غوغويس اي غبتي لكن جيركيسا تن كما غوبين دركيسنا دون كما غوبين دركو قبي حتى عمي امر قبا من الله امر من الله للنار مباشره منتهى غايه التسليم لله إبراهيم بات كدريميشا في كل مكان سيداس درتيد با إلهي تفاصيل الدعوة إلى الله مركي لو يديبا لإبراهيم بري دنبه أيامها دونك كسومري مع المهد ugu fiicnay ama maalmaheed ugu jeceshahay ama wixii ugu wanaagsanaa ku soo maray maxay yihiin ama maalmaheed ugu wanaagsanaa ku soo maray hadda lagu weydiiyo loo yiraahdo maalintee kugu wanaagsaneed adduunka ku soo martay maxaad ku jawaabi lahayd حضر الله يا وحن بس كشيء قليل نبغى وحبا صومر يا نور كبير هدي له يجي محولنا نور كشدي أبين كان نور كشدي بان وقف عنا ولا قور شدي كوضا يعني يا وقف عنا بورنا إبراهيم وحيري بالليل مالمه أن دبك كجري أي أدون كي وقف عنا أنتي صومرتي قرآنكو أنت بدن تفاصيل مسي قلقلو لكن وحا لا شيء أفرتن عشرين وماشى كجري أفرتن عشرين ودبكا كل حجري أو جنة اللوجا كان يعنتي يعبد يمرأ شو قدر ركسنا ماشى وما المه يقول ركسنا يقول وهكذا يفعل الله بالداعي إلى الله هذه أنا أساس على الربا إبراهيم عليه السلام قصص كيسة تعليم بينوتاي موسى سيدو كله نبي يدي دمانتو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قرآن كان وإلهي وكسو دجينيه بالتفريق دعوة لوغو تلاقري ما أنتو صور دبتونيا قلودن وتغيا والله الله وركاسي عايا مركاسي أفلقادينيا مركاسي فرحمينيا مركاسي لغا بين عيد كشوبان أما والعياذ بالله عن روف أما دبات يبلي بأوجستان أنت صور دبأ إسوق وتا أي جوريسي كسوق البنية قرآن كبا سودجي كوي ما أنت هذا تكتي ساسي كلهن جواب تواسداس يا سداس ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا مربى يحرنا أن كل شرنا محمد وكالي أن مال وحلا سلدقنا حد يليشا نين وراك سبات وقتها نين عاقلاتها وأمانة يعني أنت لا دونه حليه وحن أدوده هوشن أدوده واحد كدون يشاء هدي أي تحي إن بقر نقطة بقر عن كهذا جنو إن كده رفشة إن كده بقر بان كهذا جينا هذا المال كدون يشنا مال إنسان أرورنا نك نوعه مال بدن بانو كهذا جينا هذا دون يشو وحن كهيا أي تحي عشق يعاشق يقبر جعلنا تيوانا كسنيد تيوانا كسنيد طبعا بانو كوحلينا وقبلها قريش وقو قرح بدنو ونكو غورينينا نغدك ونغا فريشو
هذا الكود مركي دميان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمور جواب جرين أفرغتم ما دميسن وركينها بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون يقول سيدهن أذيقنا قل وحاتنا إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين جوابتي سوى قرآن وش كنت ما حيكون هذا إلا هذا الكلاه بكل هذا مفحم وآموسينية وما لا يقول كذا غاغانا يجري حتى قال لك يقوينا مركو لقيستي وسوى قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن أعرضوا فقل آياتهم وغري فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود رحمكي أني أدين نقدر حيان كقول داري هل كهدافن حليه محمد ويو هدو وحيلا وحيلا ودحيانه صاعقين يكسر دعدو كبقي وأنا قال هذا مركو دتك يكون نقضين وحيلا القرآن كان لشيء قول بشر يعني معها وحبني آدم يري معها وكذا معها والشعر معها وكاهن معها وحمعان وهذا طلاوله ودنا وناكسن له وكان وسريا ورميات إسلامتي ما عذب بالله أنا ما إسلامي لكن وحو يهندي شيء يا قرآن وقال هذا مركز النبي دعوتي شو حيهيد القرآن الكريم مركز لو حيكون دهن محمد إن أنكر رعنا بدون شاء ودين هذا أنقاذنا هذا بواد أركتو أن ضدك أدومك وقول الحن بانه هاي دول كان وما كذا هذا ركتي بوروهن وذا عريريين سي قرحة أجرا عيسين أن كوجو بنيه حدي ليس نولا هذا الرب جاء بورهن هنجا كحيو ودول بنأ هنو سمايو أو وبيه هنو دلعيو إلا نيل إيو فراد إيو سو إلهي ما سميناها تيانو هنجا وبيه هنو سمايو وما شان أو كوجود منه أو جنات هنو يارو أو بيرو وين خضارتي إيو فواكهدي إيو وحدنا يكبوا حان أذنا أدعنتو أننا نقول عنا مرمرك قاركي نو سمي هذا تسايا شو وأكون راعينا هذا الكاس يكون المقتل جوابتي سوى القرآن جواب كلمة سيناء إلهي ومرك وشكيني وأسلها بينكي بإله كسو الدجنية وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وقالوا وحدهن ما لهذا الرسول رسول كان حاشا نجيسو ياي يأكل الطعام سيدا أنه كلا تعونايا ويمشي في الأسواق سوق تجاه وشقيشنا ما لا يعني بايع مشترى وكلا إن وحبا من قد وني لولا أنزل إليه ملك ما ملك لو سودجيو إلا إن إلهي وأو ذاي ملك أنتو عرك كسودجو مو لا شقيو يراه وروان رسول الرمية من يراه أو يلقى إليه كنز أما كنزي عرك اللوغو سودجيو يعني مال فربضا لو كانوا دبدا نقول شيء حيث وحنا فقري ولا صعد أو تكون له جنة بير قرح بدن ولا أكسن أو ما نكتب ويحضر ريان أو تكون له جنة يأكل منها وحكعنا أنتم سوق ما لهاش باع مشتري مساكن مسكين سيدنا وقالوا يعني وفي قراءة نأكل منها نقول نفتر كأنه الله عنين وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا هذا الكودي إله بأو جوابه مرك سبحانه وتعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا تبارك الذي تكاثر خيره وتنزه أمره الذي كيو إن شاء هديه دون جعل لك كويلا ونكويلي به خيرا من ذلك وحي شيئا جنات تجري من تحتها الأنهار
aakhiro kugu siiya wayajcal laka qusuura qusuur laa ilaaha ila allah. hadda ka horna waan idiin sheegaan u malayn beri aan musaabaqat alqur'aan tartanka qur'aanka ee suudaan ka dhacay baan waxaan ku jiray lajnatu taxkiim maxaa la yidhaha guddiga garsoorka wax kasta in af soomaaliya rabtiin idinka lajnatu taxkiimkaan ka mid ahaa. marka qaacadii baanu fadhinaa wiil yaroo qolada u dhashay la yidhaha maali dowlad waxa waaye africa galbeedka africa maali ayaa loo yeedhay hebel waa wiil yaroo 13 jir 14 jir meelaha kursigiibuu ku fadhiistay anigay igu soo beegantay su'aalihii la weydiinayay su'aalihii mid ka mid ah ayaa suuratulfurqaanka haddaan idiin aqrinayay baa ka mid ahayd markuu soo gaadhay aayadahan وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا عد آد قرح بدن وآد قرح بدن بكو أقري هل كامرك أمريو أي اسكوي وأين كيرا اسكوي سقي وأوي قرآن كواوري كذي واي أنا جي هوشين وحي هاد إنان خطأ أي أخطاء وحي أنقر قرنه أنا جي بنجود أوهيسي وراقه خليمانتي وإسكي اللوني قاعد يودم بأسلو وذا برورته إسلو أويدي ولا وذا أويدي إنك هسانا سببها إلا وذا أويدي وحان سويدية مركة محوب حكا أوهي حلو أوهي إنك هايري كيمد أدغال أفريقيا تلو وحان السري رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أيضاها هبينكي أما مالنتي يكسو الدقيين لباتدي هيستي يحرركي سكلا كل مي إيها قردامدي إيها حيدي إيها مقرنا إيشا ما إسلها ويل أفريقيا لغا كيني أدغال أفريقيا أيا جوابه إلهي أوف جوابه أديك وكو دفاع يا محمد أقري دونه في آخر الزمن فلو ما إسلها عليه الصلاة والسلام ما كان ربما اسمه سنورن إنه سنسورن بلغ يابا لكن وكا جوابتي وحي نقطي إن لغا يابا هذا إن كاير أفعل بنا ما بيقام با محكوه أيضا مركم مرأي محكوه بركة إخواني بارك الله فيكم قرآنك كل جيش من أوله إلى آخره والدعوة إلى الله وحا تفاسيش هذير سواء هالنقطة النبي ذي هوري أما النبي جاني محمد صلى الله عليه وسلم سجاب أبو بلنبا رسولك عليه الصلاة والسلام قلبي يسوى حكو جرى بإله إنه شيء قلبي يسمى حكو جرى متقن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قلبي يسوى حكو جرى تدخل لنا الإسلامان وحو هذه يقول وكو همي جري تلو إلهي أو إنسان هذا أبورتي مركز تبه الجوجي يونا نرجلي يوسن نرجلي جنة هو ذا قلين محيا لي إله إن الجنة وذا جيسو أذو واد أودا بقرتو إذا أنا وحبك عن ناقص سميسو تدك أدونك جوجنا هذا الجنة وذا جليسو بقرتو إذا وحبك من ناقص يسو إله ما يسكو الإسلام ساسو قلبي كجعله لكن إلهي حكم جيسا الرنك لا هرمرتي ومشوا ربي قال لي ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين
وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ولو شاء ربك ربك هدو دونه لآمن من في الأرض كلهم جميعا لما أنتم مؤمنين بين الله هدو دونه إلهي ما دون لكن أفأنت تكره الناس محمد ما دتك كقصبي أن يكونوا مؤمنين إليه ومسلمين نقضان كما قصبي كرتي الله بساكورني مركز إليه حقيقة شيء وما كان لنفس نفنا وما أهان وما سورة قليشو أن تؤمن إن إيمان التي ما مؤمن نقطه إلا بإذن الله إذن إلهي موي مركز إنه إلهي إذن إذن إن المؤمنين نقطان سو نعمة وين ما ملايين بلايين البشر مركو كهسوعي ومؤمن كهدغي بإذنه سوح وين كمونا سين مش مريكان كي فرنسيسكي إنجليز كو حيستان با إذن لوي كاسا إذن لوي مارو مرينا وحي هيان مالكواس وحن هوغي هلاقي هيان مان دي اللي يظن لها عاوة بوك با لقوريايو مقعيان لقوريايو مريكان كان لودو فينا يا مشغول لهذين يا ولي ولا شكو دليل هابو ليش لا إله إلا الله لا إله إلا الله المشكلة مشكلة دوا مشكلة دي حلوة دي ذهبك حلوة دي ذهبك متغنى يا هنا يرو شنجرة هدي هرتي سلا صدقه 5 كيلو ذهب هي 5 كيلو حلوة ده كيف قادر لنا واركيد قادر لنا ده هي هذا ير أي مسجل باته ما هي أورني كأنه وي كاير بنشيء يا يدلو مانه وهذه وهذه هذه 5 كيلو حلوة حلوة دي بيرسمها دي وكا ثاني شيء مرخاتي مدون تسوم وكا هذا تكو أخرجوا قرآن كي زبورية توراة إنجيل إني ذهب كفي عينه ما كان عايش فهم ماي والذهب كان كخير بدن الذهب كان إسكاقاض ذهب كان واحد كوي يمشن دونتا بقول كونوا باف أو حلوة هذا دونته ذهب كقاض لكن كمان أدعين كرتي لأن كدرين كيسة ماشى جوجا حيا لدرين كيسة هالكاء ما درين سنة dadkeen waaweyn waa saaso kulligeen xalwadaas daba ordayna ilaahayna wuxuu ruuxa gaaladu ay idin madoobeeyaan idin cadeynayaan quruxaad moodaan wanaag moodaan nolol fiican moodaan waa xalwad muaqata ee dahabka qaata dahabku waa maxay waa diinta dahabku waa quraanka dahabku waa dhikriga ilaahay dahabku waa salaada dahabku waa albaqiyatu salihat kaasa dahaba kaasa qiimo leh الله نفانسي آمين سي النبي أن أقضينه ودعاة إلى الله وإلى رسول الله ونقنه وإن قلبي سسيروها كقد يشهد النبي عليه الصلاة والسلام كلية يسنق نقنن ظاهرك وأنا قضي إذا النبي صح حافي عن ركو حلنا يا نحن أركو جعلنا جعلان سدو ولا ينا عندي سعبدي سجيف كي سجوج أنت بلغ قضي لكن سريرة دي سيئاوة قلبي سيئاوة همي سيئاوة كل جبريل لو شكوى هذه يودباتك سوق هذه إلهي ومقلي وحنا يقص دري ملك الجبال بورها ملك حساب سن أي يقص دري أمر كاغانا للسوقية هدي أدونيسو لبا بورو ووا وينو مك خريري أخشبين ليلة لبا سنبوسا السوق بنايا أنت كل حجرتور دمبه ويكون المسيانو حبل لقى أركب معي أمر بعد يقول لقى سوقية محوك جواب النبي عليه الصلاة والسلام لا ما بل أرجو وحن إلهي كرجيني وأن الله كبري يا إياها إسكادا سيدونا هالنقطاني أسلاب تودا المها دبر كودا كجرا إن أي موحدين نقضانو أهل لا إله إلا الله أي نقضان نبي صلى الله عليه وسلم dadkii kuwa ahaa ee saa u galay maalintii ay soo islaameen ee caamal wufuudahay ay wafdigoodii soo direen si ay islaamkii ay u qirtaan oo nabiga hortiisa ku islaamaan
intaynan madiina soo gaarin iyagoo duleedka maraya yaa waxaa arkay saxaabi la odhan jiray almugiiratu bnu shucba radia allahu canhu oo isku reer ahayeen baa arkay dabadeed aad buu u farxay wuu soo dejiyey waa fariisiyey caanuu siiyey geed buu halkaa ii fadhiya isagii baa orday muxuu ku ordayaa nebigu ku ordaya xaggiisa calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay bishaaradii aan lagaaga horrayn lianna nebiga markii lagu yidhaa loo sheego qof islaamay wuxuu ugu jeclaa buu ahaa dabadeed mugiiratu bnu shucba faraxii buu isla hayn waayey markuu masaajidkii soo gaadhay abubakar buu arko wuxuu yidhi abubakarow bishaaro weyn baan nebiga maanta u wadaayo ahlu haqiif qabiilkii ahaa ee ahlu taa'if ahaa oo soo islaamay baan hadda halkan ku haya wafdigoodii baa socda abubakar maa laga badiyaahe abubakar wuxuu yidhi aqsamtu calayk ilaah baan kugu dhaariyey iyo xaqa aan kugu leeyahay iidaa aniga bishaarada aniga iidaa anigu aan nebiga ugu bishaareeyey mugiiratu bnu shucba wuxuu sameeyey garan waaye waa iska daay waayahay maxaa yeelayaa buu ilaahay tagaba abubakar baa tegey yaa rasuula allah abshir bishaarayso maxay tahay bishaaradu qad aamana ahlu taa'if waa islaameen wafdigoodii bay soo direen nabigu muxuu sameeyey alayh salaatu wasalaam fakharra saajidan lilaahi sujuud buu dhulka la dhacay ilaahay buu ku mahadiyey waa dadkii dhagaxyeeyee shalay dilay weeye calayhi salaatu wasalaam ee hagardaamada xumaatada weyn ku sameeyey isaguna islaamnimadooda ayuu saa ugu farxaya calayhi salaatu wasalaam haddaad markaa fardun min alummati muxamed sala allah alay wasalam aad tahay sidii nebiga jeclow dadku inay wada islaamaan indha yarta iyo indha waaweynta kuwa cadcad kuwa madow kuwa mashriq jira kuwa maqrib jira adduunka meesha ugu dambaysa iyo meesha ugu sokaysa iyo meel kastay joogaanba dad waxaa jiraan diinba gaadhin wuxuuna iska samsamaystay new zealand meesha la yidhaaha adduunka ugu shishaysa qoraxda meeshay ka soo baxdo baanu beri khuruuj ku baxnay fii sabiili illah kuwa waxaa ku nool qabiilo la yidhaha muuri waa qabaa'il wathaniya ah waxba aan aaminsanayn waa heshiinay bay dhaheen waa ilaahyadan iyo waxa la caabudoo dhan baan iska dhaafno iska nool yihiin mid iyaga ka mida unbaa markuuna arkay dharka aan qabno iyo midabkeenna iyo koox waxaan nahay soomaali oo jamaaca aan wada soconno oo meel baanu u soconnay masaajidkaanu u soconnay iyo inaan ka soo baxnay garan maa ma xusuusta hadda waa dhowr iyo sagaashanka markaasuu noo yimi ana salaam halow waxaa yacjab geliyay buu yidhi dharkaad qabtaan iyo midabkiinni iyo waa jeclaadeen fursaan ka dhigto waxaan haye maxaad aaminsan tahay niyo war bal ii tarjama ish tu'min wuxuu yidhi aniga waxba ma aaminsanin maxaa dhahay wuxuu yidhi adduunka 4 ilaah baa jira 4 ilaah waa ka annagana sameeyey qabiilkeenna muuri baa la yidhaahayoo halkan iyo austraaliyaan ku noolnahayoo hal ilaah baa nagu fara yaraystay annaga ilaah kalena waa kan indha yarta sameeyey shiinaha iyo jabaanka iyo waxaasoo idin kuwa indhaha yaryarba ee gaagaaban ilaah kale iyagana samaystay ilaah kalena caddaankuu samaystay ingiriiska iyo waxa cadcadoo dhanba ilaah kaleba iyaguna leeyihin inta ka soo hadhayd idinku ka mid tihiinna ilaah kalaa sameeyey kolka 4taa ilaah baa adduunka ku looltamayo waxa dhibaato maanta adduunka ka dhacaya iyagaa sabab u ah dadka islaynaya mashaakil ka dhacaya 4taa ilaah baa isku dhufanaya oo isgaraacaya yarkii mutarjimkaa waxaan ku idhi waxaad ku tiraa you are wrong mataqaana af ingiriiska waad khaldan tahay ku dhawaanay waa shay ku yidhi you are wrong waad khaldan tahay qofka laguma dhaho xaggaa waa la sheer ixtiraamaa indhaha kaga soo rid baan waad khaldan tahay waay maxaa jira maxaan u khaldanahay waxaan idhi qiyaaska aad waddo waa qiyaas khalad ah sax ma aha تعدد المصنوع لا يدل على تعدد الصانع الصومالي قال أقول شيء إنجليزي أقول ترجمة وحيالها لا سمية لا فرسمية أنواع ذو ذكر الدول دليل ماها كان wax sameeyay inuu isna fara badan yahay mid qura ayaa anwaac kala duwan samayn kara
كسو قاد بان إلى هذا شركة تويوتا ليرة بابورتا سميسا بابورتا تويوتا أو بدن بابورتا قاربة أكتر نتاجنا شركة بابورتا سو صارتي وهل شركة بابور واوين كوا يرير كوا إندا يرير كوا إندا واوين كوا عد كوا مدوسو ما سميان لكن شركة وامد قرى هاوي كوحان هرتو وأقل دنتو إله سمي دتك وهم إله كليه لكن وحو أكل الدوي شيء كوتسو إنه قادر يهي دد مدو إنه سمي دد عدنا إنه سمي دد إنه يرير دد إنه واوين دد دير دد قاقابا متقرؤون هدو سمين لها ده وحكى في عن إنه بويروا وحبان فهم إكزاكتري هذا الكاس سحوي وهذا الصحة مركب وحاله وهل إله وأنا ذو ميسا إنه هل إله مركز سوري أوكي وهي محل يقربها وحال قربها بين تلاقي لا إله إلا الله لا إله إلا الله بوير وأكون واقع أفنجريسك وشجع أفنجريسك والله وشجع وحنا مركب إله سوين وعظيم كا وأنا قلت أنا بدي سميه ما أركي كرنو نين أنا ميدو نوصل دري وميدل إست شرق ميدل إست بيت شرق الأوسط هل كل شيء محمد ليلى صلى الله عليه وسلم نسوق على رسالة ديسة سجن وين ترميسا وهي ديار بنادي محمد رسول الله وكل واحد هذا ماشي يسقوا إسلاما مسلما كحيني شايل كانوا كيني واسك إسلام ميدا كله أرين كلام أقدره وحنا إن إلهية ذو بدنين دليل كاس القرآن كبكت إن إلهية ذو بدنين أنا هذا الصومالي ده كهر تاجن حقين كان نبت صوماليا كتمادين صوماليا كان محنا كاني باني وده كان محدد كانوا يمادين ما كان كرت هذا كواحد ماشي ويمادين وحول يسهم بروبلم أو وده كودي كدعي مشاكل وده كودي كدعي ما كان وحنا مشاكل كودن كودي كدعي لبا استقالي لبا حزبي لبا قبيل لبا استقالي مدافع دي شو قراعين وشو عرين دتك مركا لبا استقال شيء بابا دت كان فرحودي شن إلى 20 ساعة الديارات سو صارناين وهالكذي بعدين هدي أفر أهل هاي كورن أفر إلى هدي استقالان دون كنا ما بربر لها عركة يوحنا يقولك والرب صح مركا ما جينا بالي هل إله كليوي تهدي إله بابيل أنا قم أوراني المكتب مركا وركا يعني دي كوشي ديرين إخواني أخواتي داعين إلى الله وإلى رسول الله أن نقول دينت إلهي أنه قلبك أشيك إن كان يعني ماشي مفرديا إن أدونك لقى شوقيو مشرقا ومغربا أذوقوا إن أذوها يسو بدبادي يكون بدبادي لاهين لا إله إلا الله محمد رسول الله بعدوها يسا عدك لو قارسيني شمالي هذا تايقين ستنا إلهي بقى قوة ديدا كسيني إلهي بقى قوة ديدا كسيني شو كل جنسيرات ديار مني توفيق الله لنا وفجر ذنبنا الله فك والدتنا الله شدوا عيسنا بر وأنا أخريها مش أقول هذا إنه أخرنا أي شيء قدر يساعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء
فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خالق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولي فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم بلغ رسوله النبي الوفي الأمين ونحن على ما قاله ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم يا من أنزل القرآن وعلمه لسانا يا ربنا علمنا القرآن وأشهدنا به واغفر لنا به ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وللمسلمين أجمعين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وأصلح لنا في ذرياتنا واغفر اللهم لنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين دعاء الله نقا أقبله قرآنك يا خيرك إلهي نوافجي الله نقا أقبله مجلس إلهي نوقدم بدافع الله نوقدقه مجلس إلهي نوقدم بدافع الله نقدقه دنبيني كي والدين تنبا الله دافع دنبيني كي والدين تنبا الله دافع مسلمين تمر شرقا ومغربا الله هو ذنب دافع كل قود الله هو ذنب دافع ولا لها بكاء حنون سنية إلهي وحن كبرينا إلهي